waxaan soo gaarnay Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay innal insana khuliqa halu'an idha massahu ash-sharru jazu'an wa idha massahu al-khayru manu'an wuxuu Allah inooga warramayaa bini aadanka dabeecadiisa attitude-ka bini aadanka iyo dhaqankiisa buu Allah inooga warramayaa tabaaraka wa ta'ala dabeecad cajiiba buu leeyahay bini aadanku wuxuu ilaahay leeyahay caza wajal ina alinsaana dadku khuliqa waa la abuuray haluucan isaga oo aan sina ku fiicnayn sina ku roonayn maxaa laga wadaa insaanka waxaa la abuuray isagoon sina ku fiicnayn oo sina aan ku roonayn waxaa laga wadaa aayadda danbaa fasiraysa idaa massahu sharu jazuucan wa idaa massahu alkhayru manuucan qofku inuu ku jiro situation farxadle oo wanaagsan xoolo helo barwaaqo helo caafimaad helo wax fiican helo haddii uu barwaaqo iyo caafimaad iyo xoolo helo dhaqanka bini aadanka waxaa ka mid a manuuc wixii ilaahay siiyey inuu manciyo oo uuna bixinin baa dhaqankiisa u badan yahay la bakhaylo kuma fiicna marka dhinacii barwaaqada iyo nicmada kuma fiicna bini aadamku dhinaca kale wa idaa massahu sharu jazuuc haddii uu taabto oo uu helo barwaaqo iyo khayr waxaan ujeedaa dhibaato iyo dhib hadduu ku dhacana nabadgelyo xumo dhaqaale xumo caafimaad daro haddii wax shar ah oo dhiba uu qofkii ku dhacana waa jazuuc jazuuc waxa weeye wuu argagaxaya stress baa ku dhacay halka marka waxaa soo baxaysa qofkii bini aadankii waxaa la abuuray haluuc isagoon labadii dhinac midna ku fiicnayn sina ku fiicnayn haluucdaas waxaa marka fasiraya idaa massahu sharu jazuucan haddii uu shar iyo dhib ku dhacana xagga caafimaadka xagga xoolaha xagga nabadgelyada waa jazuuc waa mid stress iyo buuq iyo argagax badan wa idaa massahu alkhayru manuucan haddii khayr uu taabto oo barwaaqo iyo caafimaad iyo xoolo iyo wax fiican uu helana manuuc waa mid mancin badan oo diidaya oo reebanaya wixii oon khayrkii sacrifice u sameynaya dhaqanka bini aadankaa saas ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana dadkii insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan isagoon sina ku roonayn sina ku fiicnayn xaaladna u roonayn jazuucan xaal uu yahay mid stress iyo argagax badan waa goorma idaa massahu sharu marka uu ku dhaco shar uu ku dhaco xaal uu yahay baa la abuuray markuu shar ku dhaco xagga caafimaadkiisa wax ku dhaco reerkiisa wax ku dhaco nabadgelyadiisa wax ku dhaco xoolihiisa wax ku dhaco jazuucan xaal uu yahay mid argagax badan baa la abuuray oo stress badan idaa massahu sharu marka uu dhib taabto manuucan xaal uu yahay mid reebid badan oo bakhaylnimo badan ayaa la abuuray idaa massahu alkhayr marka uu khayr iyo barwaaqi iyo nicma ay taabatan marka waa labadaa mid un qofku jazuucanti iyo manuucantu xaala la yidhahdaa naxwada marka labadaas situation buu qofkii ku salaysan yahay mid walba allah caza wajal xikmadiisa waxaa ka mid a wuxuu inoo sheegayaa group of people oo ilaahay uu ka soo reebay dadkaas xun ee barwaaqada aan ku fiicnayn dhibaata markay ku dhacdana aan ku fiicnayn ilaan qofka mu'minkaa markay dhibaata ku dhacdana isaga waa maxay roolkiisu maxaa laga rabaa markuu dhib ku dhaco sabir adkaysi inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inuu adkaysto qofku ogaado waxaanay ilaahay inay ka yimaadeen marka barwaaqo iyo nicmo u helana maxaa laga rabaa alxamdu lilah inuu shukriyo ولذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحول ليهي عجبا لأمر المؤمن مؤمن كأرن كيس اللياب بوليه إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له حدي برواقي النعمة وهلا الحمد لله بوليه وشكرنا يا خير بكيه وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له حدي نباته كل عضنا وصبر يا لبعض أجر بأوجر مرك قفك مؤمن كا برواقدنا أجر بكيه سأوته وشكرنا dhibaato hadday ku dhacdana ajir buu ka heli sababtaa uu sabraya soomali marka
dadka aan sina ku fiicnayn ee dhibaatadana u adkaysan karin barwaaqadana u adkaysan karin ilaahay wuxuu ka soo reebay ee xunxun dad fiican. bal dadkaa fiican aan aragno ilaahay wuxuu ku sheegay 9 tilmaamood buu dadkaa ku sheegay fiican. iska dhex raadi 9 tilmaamood ma leeda isweydii, ask yourself tilmaamahaas inaad leedahay 9 ah ee ilaahay dadka fiican uu ku sheegay een haluuca ahayn argagixin sina aan ku fiicnayn tilmaamahaas isweydii naftaada. wuxuu marka ilaahay yidhi ila almusalliin kuwa tukada mooye dadka musalliinta kuwa tukada mooye waa dadka tukada aladiina kuwii weeye not only kuwa tukada ee aladiina kuwii weeye hum iyagu calaa salaatihim salaadooda daa'imuuna joogteeya waa kuwa salaada daa'ima. dadka fiican ee wanaagsan ma aha kuwa salaada one day they pray another day way ka tagayaan, kuwaas ma aha kuwa fiican. aladiina kuwii weeye hum iyaguba calaa salaatihim salaadooda daa'imuuna joogteeya oo si joogta ah u tukada. salaadaha shanta bay si joogta ah u tukadaan, every single day bay tukadaan, waa kuwa salaada tukada. waa qodob. waladiina kuwii weeye arrinta labaad dadka fiican fii amwaalihim xoolahooda uu ku dhex sugan yahay xaqun xaq, xaqaasoo macluumun la yaqaano. waa kuwa xoolahooda ay ku dhex jiraan xaq la yaqaano. oo yaa iskale marka xaqaas la yaqaano? waxaa iskale lisaa'il qofka wax weydiisanaya war waxisiiya leh, iyo walmaxruum midka la qadiyey. maxruum waa la qadiyey. maxaa loo qadiyey? sababtoo dadkii waxa ma weydiisanaya lama garanayo. qofka waa miskiin laakiin lama oga, sidaa darteed dadku way qadiyeen ma garanayaan. waana ka mudan in laga warhayo. waa kuwa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala laa yas'aluuna annaasa ilxaafan yaxsabuhum اljaahilu agniyaa. qofka aan aqoonin wuxuu moodayaa rich inuu yahay, iska dharcad yahay, iska labisan yahay, iska qurux badan yahay, dadka wax weydiisan maayo laakiin waxa ma hayo. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. قف كان أقول إنه وحي مودي قف ريش أبو هايستا من التعفف وقف دور صوت أو قفنا وحبوا يدي سنين سمعت صوته ونسكب بدان في عينها ويسنظيفينها ويسهاجاتينها مركز تذكر حي موديان إنه وحيست qof kaas way qofka mudan in dadka su'aasha badnayn in dadka wax weydiisanin ee shaqada haysanin qofka way qofka mudan in laga warhayo oo la taakulay. waxa iskale xoolahaas oo siinayaan lisaa'il qofka weydiista iyo wal mahruum midka la qadiyay ee dadka waxba weydiisanaynin in laga warhayo. xaqaas marka macluumka waa xaqee labadaba way soo galayaan. zakadii horta waa koow. إلا الزكاة هو حق معلومة. الزكاة حولها إنه وحي كويهن حق معلومة سما. جيلا وحال يقول هي حق معلومة، الله حق معلومة، حق لي يقانه، بالك واجبة. أرجع حق معلومة. بزنس كحق معلومة سما. ذهب كيو في ضد حق معلومة، بيرتو مركز صباح حق معلومة أو الزكاة بالقول هي. وحكى له سوق لي حق معلوم كه اللي يقانه، not only زكاة وحسوق لي الصدقة ذي كله. حق المعلومة بالقول هي xoolahooda waxay ka bixiyaan sadaqa kale oo macluum oo la yaqaano oo u go'an masaakiinta ay u qorsheeyaan oo u plan gareeyaan. marka xaqa macluumka ee la yaqaano ee xoolaheena laga rabo waxa soo galaya both zakadii iyo sadaqadii kale caadiga ah labada. waa tilmaan laba. walladina kuwi way tilmaanta kale ee dadka wanaagsan ay leeyihiin ee haluucnimada ka badbaaday yusaddiquuna rumeeya biyawmi الdiin maalinta is abaalmarinta the day of judgment. maalinta qiyaame ee is abaalmarinta ayay rumaysan yihiin. so maxaa laga wadaa way rumaysan yihiin? they prepare for it. way u diyaar garowsan yihiin. sadaqay u baxsanayaan, quraan bay sii akhrisanayaan, salaadii bay ku dadaalayaan, waalidkii bay baari u noqonayaan. waa qof u diyaar garowsan ku tala gashan qiyaama inay ka dambayso aakhira ka horeyso. والذين يصدقون بيوم الدين maalinta qiyaame ee is abaalmarinta ayay rumaysan yihiin. waa qodob kale. tilmaantooda kale waxaa ka mid ah waladiina kuwii weeye hum iyagu mushfiquuna ka baqa min cadaabi rabbihim cadaabka rabbigood.
وكو عذابك كبقى مشفقون وحي كبقيان من عذاب ربهم عذابك رب قد بكبقيان إلهي وعذابنا قبد بادي إلهي وعذابنا قدر اللهم أجرنا من النار انت أساسي كدو عي سنية إلهي وعذابنا قيلا إلهي وعذابنا قدر فإنت إلهي كبريان تبارك وتعالى صوته وهلسوي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم سورة محوها سورة الفرقان لما كذا صفات عباد الرحمن مركو إلهي كورمي صفات كذا وحا كمذا وكو كدو عيست ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إله جهنم عذاب كذا نقول إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما مركو كواسوي والذين كوي هم يقولون مشفقون كبقى من عذاب ربهم عذابك رب قد كبقى محلو ليه سيداس قفك هدو عذابك إلهي كبقى يو حرام تسكي لالنهي حرام بسكي لالنهي إلهي إنو أركي يوغيه هدونا قفك عذاب إلهي كعب سنهين أو إلهي أونا كبقيننا وحوال بو سيمبل بو ولا سهلنا وحوال بو وحيلا نقولها هي very simple بنتي بو شيغيا ربادي بو اسكا قادنيا محوها الزينادي بو سمينيا dadkii buu xamanaya dadkii buu dhacaya dadkii buu hadduu raba dilaya qofku hadduunan aakhare ku xisaabtamaynin oo ilaahay ka baqaynin dembigu waxba lama ah easy buu u qaadanaya laakiin qofka muuminka waxaasoo dhan uu iska fogeynaya sababtoo ilaahay buu ka baqay والذين كوي هم يجو من عذاب ربهم عذاب كربهم مشفقون كبقى سببت وامحي إن عذاب ربهم عذاب كربهم غير مأمون ومدان آمن لغا أهين مد آمن لغا نغضه وقفكو ويدهد وحبا بمجرى معه ومدان آمن لغا أهين ومدان آمن لغا أهين وقفكو آيتهي إنو مارت وديار قروبه تلمانتك لوامح والذين كوي وي تلمانتك لهم يجو لفروجهم فرجقو وعورده وي وقفك محوها ماشو كاكاتشو أيال لهذا لفروجهم فرجقو حافظون إلى عليها فرجقو إلى عليها waxaa soo gelaya farjigooda ilaaliyaan oo horta soo gelaysa cawradooda way asturtaan isma qaawiyaan waxaa kale oo ka horeyso hadda loo jeedaa aayadda oo macnaheeda koowaad ee loo jeeda uu yahay zino iyo macsiya iska dhowraan xumaan bay iska dhowraan shahwadooda kuma gutaan meel xaaraan zinada iska ilaaliyaan farjigooda ilaaliyaan ilaa calaa aswaajihim xaaskooda mooye xaasko ilaahay u baneeyey ama ninkeedii ama muxuu ahaa gabadha ninkeedii ama ninka xaaskiisii dadka isqaba mooye ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda mooye aw maa malakat ama wixii ay hanatay aymaanuhum gacantooda midig ay hanatay ee addoonnimo ee ku soo galay mooye fa inahum iyagu dadka mu'miniinta ihi غayru maluumiina kuwa la eedaynaya kayrkood wey fa inahum iyagu غayru maluumiina waa kuwa aan eedaysnayn they are not accused laguma accuse garaynayo oo laguma blame garaynayo oo laguma eedaynayo xaasaskooda iyo waxay gacantooda milkiday laguma eedaynayo ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala faman ibtagaa qofkii raadiya waraa'a daalika intaa wixii ka soo hadhay intee wey waa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum labadaa wixii ka soo hadhay qofkii raadiya ee shahwadiisa la aada waxaan intaa ka ahayn shahwadiisa la aada fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alcaaduuna kuwa xaddi tallaabay wey kuwa xadgudbay wey kuwa dembi galay wey maxaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya si kasta oo qofku ay shahwadiisa uu ku guto oon ahayn wadada ilaahay baneeyey tabaaraka wa tacaala waxaa soo gelaya zinadii inuu qofku sameeyo muxuu ahaa fornication iyo zina waxaa soo gelaya liwaadka geynimadan iyo shaqadan xun ee qashinka ayaa soo gelaysa ee foosha xun waxaa soo gelaysa alistimnaa qofku inuu biyihii si kale iskaga keeno oo manidii uu wax kale adeegsado ama gacan adeegsado ama waxyaabo kale oo qashina adeegsado inuu si kale un biyihiisi qofku iskaga keenaa soo gelaysa anyway dariiqo kasta ha adeegsado qofku oo biyihii uu iskaga keenay waayo ilaahay wuxuu leeyahay faman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum alcaaduun wixii inta aan ka ahayn xaaska aw maa malakat aymaanuhum aan ka ahayn waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay fa ulaa'ika hum alcaaduun waa xadgudub tilmaantooda kale waxaa ka mid a والذين كوي وي أضمدا ومناكسن هم إيجو
liamaanaatihim ammaanadooda waa waxyaabaha trustiga ee lagu aamino iyo wacahdihim ballankooda raacuuna ilaaliya so they keep wixii trustiga ahaa ee lagu aaminay iyo ballanqaadkii way ilaaliyaan. ammaanada waxaa soo gelaysa la ilaalinayo ilaahay wuxuu inagu ammaanaystay tabaaraka wa tacaala. ammaanadii ilaahay waa maxay? oo wuxuu ina yidhi sameeye salaadihii, soonkii, khayrkii, daacaadkii oo dhan baa waxay soo gelaysaa ammaanadii ilaahay. ammaanada waxaa kaloo soo gelaysa waxyaabaha ammaanaadka waxaa kaloo soo gelaya wixii dadku trustigii dadka wixii dadku kugu ammaanaysteen. waxyaabihii trustiga ahaa ee dadku ay kugu ammaanaysteen baa soo gelaya. like xoolaa laguu dhiibto waxaa lagu yihi ihay ha iska cun, alaabtan isiha baa lagu yihi ha isticmaalin, meel ii dhig buu ku dhahay ha ka isticmaalin. waxaa soo gelaya ammaanada waxyaabihii sirta ahaa ee qofku kuu sheegtay ee uu ku yidhi ikiib gare. hadduu qofku sirta iyahay ku yidhahdo ikiib gare kama sheegi karti, waa ammaana wey. sirtu waa ammaana, lacagta laguu dhiibto waa ammaana, wax kastoo qofku uu iyahay ku dhaha ammaano wey ohay ha ka khayaana. lama ogola sirta lama sheego, ama muxuu hooyada ha kuu sheegta ama aabbaha ha kuu sheega ha ka sheegi. waxay hooyada iyo aabbaha kuu sheegaan sirta secretku waa familigiina ha sheegin, qofna ha u sheegin because waa idinka gaar idinta. ninkaaga ama xaaskaaga waxay idinka sirta idiina qofna ha u sheegin. lacagta laguu dhiibto qofna muxuu ahaa ha ka siin ha ka cunin. waxaasoo dhan waa ammaana. ilahi wuxuu leey tabaaraka wa tacaala waladiina kuwii weeye hum iyagu liamaanaatihim waxyaabaha trustiga ee ammaanada loo dhiibto ama ilaahay ku ammaanaystay ee sharciga iyo wacahdin ballanka ay qaadaan raacuuna ilaaliya. ballanku waxa weeye qof baad wuxu ballan qaada, ballanta ha ka bix. waxaad tihi waxaasaan ku siinaya, you have to do it. waxaad tihi waan kuu imanaya, you have to do it. waxaad tihi saacaddaasaan imanaya, you have to come on time. waa inaad ballanka ilaalisa. innaga meelahan ku dhimanay meeshaa wey. waxaa la leeyahay meetingkeenu wuxuu bilaabanayaa that time, markaas waxaa la imanayaa 1 hour later, hal saac kadib bay dadka imanaya. waxaa la leeyahay saacadaasaa meetingkii la dhammaynaya, 2 hours 3 hours later baa la dhammaynaya meetingki. it is xaraam. waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacun. waxaa soo gelaysa macalinku should be on time. macalinku waa inuu timeka ku yimaada. waxaa soo gelaysa before that macalinka ka hor the students should be there before macalin. ardaydu waa inay macalinka ka soo horeeyaan ay joogaan ay diyaar yihiin. maadan ilaalinin ballankii. haddaad tahay every single day if you are late and come to the cashir adigoo leyda 15 minutes half an hour waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim ballankii macalinkii maadan ilaalin. kalaaska waa inaad timaado on time ku timaado wey. haddaad macalin tahay iyo haddaad tahay ardaba it is same because labadaba aayaddu way la hadlaysaa sooma. labadaba way la hadlaysaa. waayo iskuulka iyo college-ka markaad aadayso aad u tahay on time, laakiin tafsiirka iyo cashirku marka uu jiro masaajidka iyo dugsiga aadan ahayn on time. waayo aad muxuu ahaa I know there is some rules and regulations oo lagula xisaabtamaya. halkana waxoogaa waa iska macalinka there is no very strict rules. ardaygu waa la iska daahayaa waa la iska, laakiin adiga ilaahay ka baq. adiga ilaahay ka baq. waa inaad marka ku talagashaa muxuu ahaa inay tahay meeshan balan. you have to respect diinta iyo khayrka. صح. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. tilmaanta kale ee fiican ay leeyihiin waxaa ka mid ah waladiina kuwii way hum iyagu bishahaadaatihim markhaatiyadooda waxyaabaha witnesska ay ka noqonayaan qaa'imuuna u taagan. so they are ready to be a witness. inay witness noqdaan oo waxa sharciga khayrka ay witness ka noqdaan waa they are ready for it. ready bay u yihiin. marka qofku yani ilahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa yaaba shuhadaau idaa maa ducuu. haddii waxaan markhaatiga lagu dhahaa ma arkaysay markhaati ma ka tahay waa inaad noqotaa yes. haddaan laguu baahanin waa inaad adiga iska tagto dhahda ma aha oo anaa markhaati ka ah anaa markhaati furaya no. haddaan laguu yeedhanin ha tegin. it is xaraam. haddaan laguu yeedhanin adiga markhaati ha iska dhigin oo ha isqorin adiga oo adigu ha iska dhigin qof muxuu ahaa meesha qasab ha ku gelin. laakiin haddii laguu baahdo waa inaad noqotaa show ready. waa inaad diyaarta. walaa yaaba shuhadaau idaa maa ducuu. markhaatiga marka loo yeedho ha dhihin maya aniga markhaati mi. haddii xataa ay tahay walow kaana daa qurba, aabbaha, hooyada, even if it is waxyaabaha fiican hadday tahay against your father or your mother or against yourself
ولو على أنفسكم بإله لي تبارك وتعالى. إذا النفط هذا أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. marka waa inuu qofku noqdaa qof daacad ah honesty ah oo mar walba ku dadaalaya khayrka iyo wanaag waladiina ku weeye marka waa dad fair ah oo justice iyo cadaaladda ku dadaalaya naftooda iyo reerkooda iyo everywhere waladiina ku weeye hum iyagu bishahaadatihim waxyaabaha ay ka marag furayaan ee markhaatigooda qaa'imuuna u taagan waladiina kuwii weeye hum iyagu calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ilaaliya. Okay, tilmaamahoodii baa laynoo sheegay soo abaalkoodu waa maxay rewardkoodu waa maxay maxay reward iyo abaalgud u leeyihin ulaa'ika kuwaas fii jannaatin jannooyin ayay dhex gelayaan mukramuuna waa la sharfayaa ama mukramuuna waa la sharfayaa fii jannaatin jannooyin dhexdood baa ilaahay ku sharfaya tabaaraka wa tacaala ahlu janno wey soomaalit abaalkoodiina waa kaas. waxaan u baahannahay inaad hal mar tilmaamaha aad sidaa u eegto tilmaamahaas maxaad ka eegi kartaan lessonka maxaad ka baran kartaan tilmaamaha markaad saa u eegtaan maxaa idiin soo baxay there is something oo marka ugu horeysaba kuu soo baxaysa marka tilmaamahaas cajiibka ee fiican aad eegto waxaa kuu soo baxaysa waxbaa kuu soo baxaya yaa ii sheegay waxaa kuu soo baxay salaad how waa lagu bilaabay waana lagu dhameeyey that is good. maxay ina baraysa marka what do we learn from that waxaan ka baranaynaa the importance of prayer salaada qiimaha ay leedahay qofka hadduunan tukanin muslim maaha haddaadan tukanin oodan salaada ilaalinin shanta waqti ee faralka aadan ilaalinin you are not a muslim. aniga maana dhihin nabiga yidhi alayhi salaam nabigu wuxuu yidhi bayna arajuli wa bayna alkufri wa shirki tarku salaa qofka iyo gaalnimo waxaa u dhaxaysa inuu salaada ka tago qofka iyo gaalnimo waxa u dhaxeeya waa inuu salaada ka tago ka warrama marka qof qaangaara 15 12 14 13 jira bal ka weyn college-ka aaday oo muxuu ahaa 18 xataa dhaafay duqa oo maalin walba la leeyahay wariyaa ma tukatay naaya ma tukatay maalin walba la leeyahay arrintaas sax ma ah adiga goormaad responsible noqonaysa qofku marka uu diinta iyo khayrka la baro waxaa la rabaa familiga kale waalidka inaad ku caawiso carruurta yaryar inaad salaada u sheegto laakiin adigii weynaa ee college-ka dhiganaya haddii weli salaaddii lagu sheegay ka war ee high school-ka dhameeyo duqa meeshii carruurta yaryar adigu aad salaada u toosin lahayd tukada dhihi lahayd weysaysta dhihi lahayd dugsiga geyn lahayd cashirka ugu celin lahayd homework fadhiista dhihi lahayd aad noqon lahayd second parent haddii adigii still lagu leeyahay war ma tukati ka war so sad arrin aad khatar waa wey arrin runtii aad iyo aad dhibaatadeeda ula wey waxaa loo baahan yahay marka dadku inay istiraan qofka uu naftiisa responsible ka noqdo salaada ilaahay wuu ku bilaabay wuuna ku dhameeyey suuratu almu'minuun suuratu qad aflax maxaa warathatu lfirdows markuu ilahay ka hadlayay muxuu ku bilaabay qad aflaxa almu'minuun waayo who are they aladiina hum fi salaatihim khaashicuun maxaa lagu dhameeyey waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun ulaa'ika hum alwaarithuun aladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun iyadii baa lagu dhameeyey iyagii baa lagu dhameeyey ilahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala uma baahnidin baan u marin inaan ku soo celino mise waan ku celina hal mar waa caddahay waa clear wey haya cabdalla waxaa ka dhamay farqi baa u dhexeeya daa'imnimada iyo xifdiga farqi baa u dhexeeya waa su-aal fiican wey way ka dhalanaysaa laakiin farqi baa u dhexeeya daa'imuuna way daa'imayaan way joogteynayaan salaada iyo yuxaafiduuna way xifdinayaan what is the difference waxay ku kala duwan yihiin daa'imuuna waxa weeye horta si continuous u tukanayaan horta kama tegayaan that is daa'imuun yuxaafiduunana waxa weeye waxyaabihii needishka salaada ay u baahnayd oo dhan bay la imanayaan shuruudii salaadii waa yuxaafiduuna on time waa yuxaafiduuna muxuu ahaa dahaaradii waa yuxaafiduun shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo sunankeedii iyo awqaadeedii inay ilaaliyaan waa yuxaafiduun marka daa'imuuna way joogteynayaan kama tegayaan wey yuxaafiduunana waxay u baahnayd oo dhan bay ilaalinayaan wey differencega udhexeeya kaa wey فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أن يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم وحال الله ليا قال هذا وحي لهاين دقن habit bay lahaayeen xun ila nabigu markuu joogay calayhi salaatu wasalaam an muslim community were minority in Mecca marka waxay samayn jireen
markay quraanka maqlaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo akhrinaya ila carabigii bay garanayaan macnihii bay fahmayaane bay dhegeysan jireen intay koox koox u fadhiistaan oo nabiga dhinacyada ka fadhiistaan bay quraanka dhegeysanayaan markuu quraanku soo jiito bay waxay leeyihiin asnaamtayadaan iska raacayna way ka cararayaan haddana way ka tegayaan waxaa lagu yidhi marka habeen baa waxaa jirtay xataa dhowr nin oo gaalada ka mid a 3 nin baa nabigu markuu salaatuleylka habeenkii tukanayo bay aad quraanka ula yaabi jireen macnihiisa quraanku waa khallaab soo jiidanaya qofka markaasay nabiga tukanaya calayhi salaatu wasalaam intay dhageysteen isma oga bay markuu waagu bariyay bay dhaxda ku kulmeen markaasay dhaheen war maxaa xageed ka timid oo maxamed baan soo dhegeysanay markaas waxay dhaheen dadka ba inaga kharibay inoo dhegeysanayna dadkana ha dhegeysanin baan leenahay inagina waan dhegeysanayna war habeen dambe ha soo noqonin nin ha soo laaban nin walba wuxuu is yidhi 3 nin saaxiibada ma soo noqonayaan bal caawana dhegeyso maxamed wuxuu akhrinayo haddana way soo noqdeen way isballansadeen habeenkii dambena way soo noqdeen nin walba isagoo isla saaxiibkaa ma soo noqonaya adiga bal arag horta wuxuu akrinaya dhegeyso marka sidaasay ahaayeen oo nabiga way ku dhinacyada intay ka maraan bay ag fadhiisan jireen weliba kacbada agteeda markuu nabigu ku tukanayo iyaguna kacbaday fadhiisan jireen ilaa iyaga kacbada maamulaya waqtigaas ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala famaa liladiina maxaa ku dhacay kuwii famaa liladiina maxaa u sugnaaday oo ku dhacay kuwii kafaruu gaaloobay muhطiciina iyagoo u soo degdegaya qibalaka xaggaaga xagga nabigay u soo degdegayaan can ilyamiini iyagoo ka jira dhinaca midig wa can ishimaali dhinaca bidixna ka jira ciziina iyagoo ah weliba koox koox gruub dhinaca midigna gruub baa ka fadhiya nabiga calayhi salatu wasalaam dhinaca bidixna gruub baa ka fadhiya bay ka fadhi dhinacyada ka marayaan waxay dhegeysanayaan wuxuu akhrinayo ciziin waa jamcu cizatin ciza waxaa la yidhahdaa hadda waxaa laga wadaa gruub ciziina iyagoo gruub ah bay can ilyamiini dhinaca midig kaa jiraan wa can ishimaali dhinaca bidixdana way kaa jiraan muhطiciinana way kugu soo degdegayaan wey oo markaad wax akhrinayso bay dhegeysanayaan oo rabaan inay dhegeystaan qibala kana waa xaggaaga wey famaa liladiina maxaa u sugnaaday kuwii maxaa ku dhacay maxaa ugu wacan kafaruu gaaloobay oo muhطiciina ay ugu soo degdegayaan qibalaka xaggaaga can ilyamiini iyagoo dhinaca midig kaa jira wa can ishimaali dhinaca bidixna kaa jira ciziina waa xaalo weeye ciziinadu iyagoo koox koox oo gruub ah ilaahay wuxuu yidhi ayatmacu nimanka sidaas ee qur-aanka lagu kari la'yahay haddana dhegeysanaya waxay rabaan sidaa inay janno ku galaan ma soconaysa ma u shaqaynaysa uma shaqaynayso adiga maanta haddii lagu yidhahdo weligaa waxba ha akhriyin studentina waad iska noqonaysa xataa ma rumaysanaysa waxaas waxaad leedahay wax dhici kara ma studenti baan ahay haddana weligaa ha shaqayn impossible ma shaqaynayso sababtaa wax suuro geli karaba maaha dhakhtar baad noqonay weligaa iyo allaha iskuul ha aadan dhakhtarna waad iska noqonaysa wax shaqaynaya maaha ma shaqaynayso jannaan gelaya mana shaqaysanayo wax soconaya maaha sidaa darteed bilahi wuxuu leeyahay ayatmacu ma wuxuu hunguriyeynaya ma wuxuu doonaya ma wuxuu damcaya kullu mri'in qof kasta oo minhum iyaga ka mida an yudkhala in la geliyo jannata naciim jannatu naciima inuu iska gala miyuu rabaa without deeds without camal janno maxaa lagu galaa aliimaanu walcamalu saalix iimaan iyo camal wanaagsan baa janno lagu galaa laakiin anaa sidan iyo anaa ree hebel iyo annagaa kan iyo janno laguma gala sidaas ayatmacu ma wuxuu doonaya ma wuxuu damcaya kullu mri'in qof kasta oo minhum iyaga ka mid a an yudkhala in la geliyo wey jannata naciim jannatu naciime in la geliyo miyuu doonaya sidaas laguma gala jannatu naciim camal iyo iimaan bay u baahantah kalaa ma dhacaysa buu ilahay inay muxuu ahaa camal iyo iimaan la-aan inay janno galaan kalaa suuragal ma aha ma dhacayso inaa anagu khalaqnaahum waan abuuray buu ilahay yidhi mimaa kii baan ka abuuray wixii yaclamuuna ay og yihiin wax ay og yihiin baan ka abuuray 2 su-aalood baan idin weydiinaya midi waxa weeye waxa ay og yihiina laga abuuray waa maxay su-aasha labaadna maxaa loola jeedaa haddayba og yihiin waxa laga abuuray maxaaba laga keenaya horta waxay og yihiin laga abuuray waan garanaynaa sooma waxa laga abuuray ee dadka o dhanna laga abuuray hadda waxa weeye ciid baa laga abuuray markii ugu horreysa dadka then dhibic maniya baa laga abuuray then mudqa then calaqa xinjir then mudqa then insaan dhammaystiran oo sawi ah horta waxa laga abuuray waa taas
وماشاas tabarta daran iyo biyaha daciifka ah baad ka soo jeedaan baa la leeyahay hadday marka sidaa u og yihiin muxuu ahaa they are not denying ma diidayaan they agree in biyaha laga abuuray sax aayadda marka haddii ay og yihiin reasonka loo keenay muxuu yahay maxaa loo keenay waad u malinaysaan waxa ay og yihiin baan ka abuuray haddayba og yihiin haddee wayba og yihiin maxaa loogu sheegaya ya maxay tahay waxa la socda cashirka la socda muxuu yahay ya waxa la socda waxa weeye hadday og yihiin waxa laga abuuray sax allihii waxaas ka abuuray wuu soo celinayaa wey allihii biyaha ka abuuray ee markii horena iyagoon jirin sameeyey haddana waxba kuma aha inuu soo celiyo dib buu u soo celinayaa wey dib buu haddana u soo noolaynayaa wey allihii idinkoon jirin idin abuuray haddana dib buu idiin soo noolaynayaa wey marka cashirka ku jira waxa weeye ee aayadda meel si fog looga fahmayo ee muxuu ahaa ay dumnisan tahay dalaalatul ishaarada waxa weeye in dib laga soo noolayn doono kallaa waxa muxuu ahaa ma dhacaysa buu ilaahay yidhi in ay janno iska galaan camal la'aan iyo iimaan la'aan ma dhacayso inaa anagu khalaqnaahum waan abuuray mimaa kii baan ka abuuray wixii yaclamuuna ay og yihiin oo ah dhibic mani ah in laga sameeyey ka horna ciidda ilahay uu ka abuuray bini aadanka falaa uqsimu birabbi almashaariqi waalmaghaaribi inaa laqaadiruuna calaa an nubadila khayra minhum wamaa naxnu bimasbuuqiin ilahay wuxuu ihi falaa uqsimu waan dhaaranaya laadaas waa lita'kiidi nafyi taasaan ku soconaynaa tafsiirkaas inaa laqaadiruuna danbaa kutusaysa muxuu ahaa jawaabka ah kallaa ilahay wuxuu yihi falaa uqsimu waan dhaaranaya birabbi almashaariq waxaan ku dhaaranayaa rabbiga muxuu ahaa dhinacyada istiga dhinaca mashriqa ee dhinacyada qoraxdu ay ka soo baxdo mashaariqda iyo walmaghaaribi dhinacyada ay u dhacdo rabbigaasaan ku dhaaranayaa mashriq iyo maghrib iska leh inaa anagu laqaadiruuna waan awoodnaa calaa an nubadila inaan ku bedelo khayran kuwa ka khayr badan minhum iyaga intaan iyaga baabiino kuwa ka fiican inaan keenno waxba naguma ah wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga dheeraynayo kuwa laga hormari karo laga dheerayn karo laga fakan karo ma nihin buu ilahay yidhi tabaaraka watacaala mashaariqda waa plural weeye qoraxdu maxaa laga wadaa marka pluralka waa meelaha ay qoraxda iyo ka soo baxaan weeye maghaaribna waa dhinaca iyaduna waa plural waa jamcu maghrib mashaariqna waa jamcu mashriq marka pluralkan maxaa loola jeedaa aayad kale waxaa ku timid mashriqdii iyo maghribdii oo loola jeedo tathniya laga cabiray rabu lmashriqayni wa rabu lmaghribayn aayad kale waxaa ku timid iyagoo singularo hal xaba walilaahi almashriqu walmaghrib oo mashriqdii hal xaba laga dhigay dhinacay qoraxda u dhacaysay dhinacay ka soo baxaysana hal laga dhigay marna laba laga dhigay marna plural laga dhigay maxaa loola jeedaa sida uu leeyahay الشheikh caطiya maxamed salim oo adwaaulbayaanka dhamaystiray ilaa saddexda juz ee hoose isagaa dhamaystiray sheekh maxamed shanqiidi saddexda juz ee hore isagu ma lahayn jusaska dambe wayna badan tahay kutub badan oo noocaas oo culimo intay aliftay iyagoon dhamaystirin ay muxuu aha mar dambe la dhamaystiray oo culimo kale dhamaystireen waxa uu leeyahay waxaa laga wadaa rabu lmashaariqi walmaghaarib rabu lmashaariqi walmaghaarib waxaa laga wadaa qoraxdu waxay ka soo baxdaa hal meel un kama soo baxda hal god dhinaca istiga qoraxdu ka soo baxdo way durugtaa waad aragteen waqtiga samarka iyo waqtiga winterka isku meel kama soo daahirto meelo badan bay ka soo baxdaa marka mashaariqdu waa meelaha ay ka soo baxaysa kala duwan marka la eego seasonska marka la eego 360 kaas weeye ay maalin walba ay waxuun iska bedelayso in yar distancega ay durkayso dhinacyada u dhacaysana waa sidaas oo kale taasi marka waa qoraxdii meelaha badan ay ka soo baxayso seasonskaas marka la eego ay durkayso baa mashaariqda laga wadaa mashriqayn iyo maghribayn waxaa laga wadaa waa qoraxdii iyo dayix rabu lmashriqayni wa rabu lmaghribayn suurat raxmaan baan ugu tegi doonaa haddii la yidhaahdo qoraxdii iyo dayixii labada mashriq ay ka soo baxaan iyo labada maghrib ay u dhacaan walilaahi almashriqu walmaghrib singularkana maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa singularkaas waa directionkii dhinacii istigii waa hal xaba sooma ha kala duwan qoraxdii meelo ka duwan ha ka soo baxda laakiin istii oo dhan markaad eegto waa hal direction wey singularki marka waa walilaahi almashriq dhinaca istiga iyo walmaghrib dhinaca westiga waa hal direction iyo hal direction sooma marka sidaa u eegto saasay kala noqonaysa falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa birabbi almashaariq meelaha qoraxdu ka soo baxda rabbigii iska lahay mashaariqda dhinacyada istiga iyo walmaghaarib dhinacyada u dhacdo allahaasaan ku dhaartay inaa anagubu ilahay laqaadiruuna waan awoodnaa calaa an nubadila inaan ku bedelno kuwan khayran minhum kuwa iyaga ka fiican
wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqiin oo kuwa laga hormaro laga fakan karo oo laga dheerayn karo. ilaahay wuxuu yihi fadarhum nebigow iska dhaaf, faraha ka qaad. yakhuuduu ha dhex galeen balaayada ay ku dhex jiraan, ha dhex galeen. yakhuuduu ha dhex galeen baatilka iyo xumaanta ay ku dhex jiraan, ha dhex galeen iska dhaaf. leave them. wayalcabuu ha ciyaareen xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yowmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loo yaboohay. waa qiyaamo weye. maalinkaas iyagii ilaahay ballan u ah, maalinkaas baa ballan ah. yowma maalin weeye yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaathi qubuuraha ay ka soo baxayaan. alajdaath waa xabaalaha wey, waa xabaalaha wey, ay xabaalaha ka soo baxayaan siraacan iyaga oo degdegaya, iyagoo degdegaya ayay xabaalaha ka soo baxayaan. xaggee u degdegayaan? aayad kalaa sheegtay meesha u degdegayaan. suuratu alqamar baan ugu tegi doonaa meesha u degdegayaan. ilaahay baa yidhi muhطiciina ila daac, malaga u yeedhaya mowqifka iyo banaanka xashriga ugu yeedhaya xaggiisaa loo degdegaya. siraacan iyagoo degdegaya. siday u degdegayaan buu ilaahay tilmaan ka bixiyey. kaanahum waxaad moodaa siday u degdegayaan yuufiduuna inay u degdegayaan ilaa nusubin, sanamyo taagtaagan. ila iyagaa sanamyo caabudi jiray oo sanamyadooda usoo degdegi jiray. sanamyadoodii taagtaagnaa inay u cararayaan oo xaggooda u degdegayaan baad moodaa. sida ay qiyaamada marka lasoo bixiyo ay xagga malaga u dhawaaqaya ugu degdegayaan. kaanahum waxaad moodaa yuufiduuna inay u degdegayaan. wafdada asalka kelmadda waxaa la yidhahdaa luqada wafdada. qofku marka uu alaab sito ee uu aada u ordayo sooma shanqaro, shanqadhaasaa wafda la yidhaahdaa. ereyga ruudkiisu waa xaggaas. qofku markuu ordayo ee alaab uu sito shanqadha ka baxda ayaa waxaa la yidhahdaa wafda. marka waxaana hadda loo jeedaa oo ka laazimaysa qofku hadduu shanqadho markuu socdo ama ordayo waxaa ka laazimaysa de inuu dheeraynayo. marka yuufiduuna waxaad moodaa inay u degdegayaan ilaa nusubin, sanamyo taagtaagan, sanamyo taagtaagan. khaashicatan waa mid ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahood, araggoodu wuu khushuucsan yahayoo hambalnimay tusayaan. tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinimo, dulli baa daboolaya. daalika kaa laga soo sheekeeyey ee ay degdegayaani alyowmu maalinkii weeye alladii maalinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loo yabooho. maalinkii lalahaa wuu iman doonaa, wuu iman doonaa, wuu iman doonaa maalinkaas. sidaasu ilah leeyahy falaa uqsimu waxaa fadarhum nebigow iska daa, faraha ka qaad. yakhuuduu ha dhex galeen baatilka ay ku jiraan. wayalcabuu ha ciyaareen xataa oo wax balaayadooda ha wateena faraha ka qaad. sababtaa ma qasbi kartid. inaka laa tahdi man axbabt walakin allah yahdi man yashaa. fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydir fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab. adigu roolkaagu waxa weye diinta uun u sheeg laakiin ma qasbi kartid. fadarhum iska dhaaf. yakhuuduu ha dhex dabaasheen, ha dhex galeen baatilkooda iyo waxooda. oo wayalcabuu ha ciyaareen xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yowmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loogu hanjabayo oo loo yaboohayo. yowma maalin wey yakhrujuuna ay soo baxayaan min alajdaathi xabaalahay ka soo baxayaan, xabaalahay ka soo baxayaan siraacan iyagoo degdegaya. kaanahum waxaad moodaa siday u degdegayaan yuufiduuna inay u degdegayaan ilaa nusubin, sanamyo taagtaagan. sanamkoodii ay caabudi jireen ee ay kusoo ordi jireen inay u degdegayaan baad moodaa. khaashicatan waa miday khushuucsan tahay absaaruhum indhahooda iyo araggooda, hambalnimaa ka muuqata. tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dulli. daalika kaasi alyowmu maalinkii wey alladii maalinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loo yabooha maalinkaa wey.